السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن عمر ما أنتو حنقادين 10 كينا يعني و10 ومركا advanced grammar يعني هدي أردد جامعة دكتور أردد يعني فوم 2 فوم 3 فوم 4 هذا دمان ويك فايدة كران 10 كينا مركا وحكو سابسين هاي conditional أفصومالهان وحلول جيدا شرد لي وأما حي شرد لي أفكينا هو يدان كبلاونو شرد لي دو وافلت شردي تاسو كأبورانتا لو فلوت أما لو تحد لإسكو جيه تح مدح بنان iyo tixa madax banaaneen tixda madax banaan yani midaan meanka loose kama tixda madax banaaneen hadii jeer waxay dhameystir u tahay tixda aan madax banaaneen marka every condition kasta jumlad kasto shardiyeysan jumladaha waxa lagu bilaabaa if when unless as soon as iyo kuwa kale marka la mid ah conditional kasta waxay ka kooban tahay laba qayb if clause oo loo yaqaan condition iyo main clause oo loo yaqaan marka result afka Soomaali waxa loo jeedaa waa falid shardi taasoo ka abuuranta laba falood la isku geeyay tan dambe waxay dhameystir u tahay tan horena kaligeeda ma istaagi karto iyadoo marka tan lagu dhameystirin hadda waxaan qaadanaynaa maanta conditional ka way farabadiyeen basically ila afar allaha zero condition first condition iyo second iyo third kuwa kale oo yani way jiraan ayagana marka condition ah laakiin unusual form qaacidadan hadda aniga aan qaadayno oo kale isticmaalayno kale looma isticmaalayo mid ugu horeeya waxa loo yaqaan zero conditional zero conditional asaga wuxuu ka hadlaa general factska waxyaabaha dhabta ah ama always true hadii jeer marka waa dhab ama waxyaabaha scientific factska waxyaabaha experimentation tijaabo hor loo soo sameeyay oo yani shaybaar waxyaabahaas la geeyay yani waxyaabaha xaqiiqo ah hatta tusaale ahaan oo kale if clause wuxuu ku saleysan yahay yani maxaa la dhahaa simple present tense comma main clause wuxuu ku saleysan yahay simple present ama base verb ama past form of the verb ama past form of the verb labada qayb waxay ku saleysan yihiin simple present tense tusaale ahaan if you mix hydrogen and oxygen you get water hadii aad isku darto hal atom oo hydrogen iyo hal atom oo oxygen waxaad helaysaa yani biyo waa wax sax ah يعني hadii hada hydrogen iyo oxygen hada shaybaar la tagto yani aa sameeyso waxa ku soo baxay biyo ku soo baxay yani waxyaabo scientific facts ah hay midaan kale you get burned waad gubmaysaa if you touch a fire dabadaad qabato dabada gacanta saarato waad ku gubmaysaa waad gubi doontaa maanaya waad ku gubi doontaa maahan waad gubmaysaa hadda that means waa waxyaabo marka dhab ah oo maxaa la dhahaa hadii jeer marka yani dhab ah sidoo kale imperative can be used in main clause يعني main clause قيبته main clause جملة لو يقان imperative كوالو استعمال كرا يعني وهب أمر imperative sentence وجملة أمر كي وحياباس يعني هذا جار لو موجود تصالحان if you want to come هذا ضربت إنات إماده call me before 8 يعني وحي إصابة عدا لبصع كور إصابة يعني إصابة that means وأمر هذا ضربت إنا إماد إصابة وأمر main clause قيبته أنا لدها if clause إنه قيبت أجوه رئيسة jumladan if ay ka bilaabmatay clause kana waa kana hadii if clause jumlada lagu soo hormaro koma ayaa loo isticmaalaa marmarka qaar kooda main clause ka jumlada waa lagu bilaabi karaa tusaale ahaan call me before meet me here halkan igula kulan aniga waa amar if we get separated hadii aan kala tagno hadii aan kala lunno halkan marka yani igu imo yani waa amar haddana hadii aan faan 10kaas waxaan ku xijinaynaa qayb marka exercise ah exercise kana marka waa sala shaqeynayna marka qaybteena kale aan isla socono bismillah haddana waxaan isla shaqeynaynaa qaybta exercise ka waxa lagu dhahay complete the zero conditional sentence with the verb in the brackets yani waxaad dhameystirtaa zero conditional sentence ka falalkan jumlada ku jiro dhameystir tusaale ahaan the teacher gets angry macalinku uu xanaaqayaa ama uu caroonayaa if hadii waxaan la siiyay we not work maxaa sameeynaa marka hadda san if maadaama ay tahay if mar walba clause maxaa la lagu xijiyaa clause-kan waxa ka bilowdaa wax loo yaqaano yani magacuyeelka we meeshan uu gali if we not wadiidmo maadaama diidmo ay tahay waa simple present tense don't if we don't falka aanaysan caadi iska soo qaad if we don't work hard hadii aanan dadaalin hadaan si fiican hadaan u shaqeynin macalinka marka uu naga xanaaqayaa qaabkaas ugu shaqeynaynaa hay mid xigta if hadii dash 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 illa int if subjectiga waa I soo qaad if I waa diidmo maadaama diidmo ay tahay present simple waxa loo isticmaalaa do i does I markii la siiyo do if I don't
if I don't know haddaanan garanaynin a word erey haddaanan garanaynin I look in my dictionary waxaan ka eegayaa dictionary-gayga ama qaamuuskayga jumlad noocaana lagu siiye qaab nooce u shaqeynaysaa I wake up late I verb to be late for school simply kaliya waxaa sameynaysaa if soo qaado if may ugu jirtaa may if waa soo qaatay subjectigayga ii soo qaat I wake up caadi iska soo qaado يعني هذا وحن محلها ويك أعبادي وسوق قادنا إلا ليت هذا نقيب كلا يبلاوته I وان سوق قاته يعني قيب تانو if كلوس كما I be a mission إيال وفيب to be am is are present هو so ما دام am is are present إيه هاي I أروس تحمل I am late for school قاب كاس أوشقينا مرك if I wake up late هدي يعني هردود عن قداه حلو هردان سوقعن I am late for school كيان كداهايا ترى مرك إذن كايدين داف My husband cook he burn the food قاب نوعه شغالات simply سيد هذا نسميه يعني if سوق قاضو if محاكو حجينيسا my husband سيد سوقات if my husband هدي نينكيغا waa singular maadaama singular uu yahay fal waxaanaysana cook singular ka dhigay if my husband cooks asan ku darsanaya hadii yani magacaada magacyelka singular uu yahay s ama es ama is lagu dari jiray he soo qaat he burn waa singular s ku darso he burns the food waa kaya marka if my husband cooks hadii ninkeyga wax uu duwaayo wax uu karinaayo he burns wuxuu gubaa the food cuntada ayuu gubaa waxaan filayaa exercise-kaas inaan isla fahanay aadaan u mahadsantihiin